musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Soo dhaweynta mas'uulkan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo waliba shacab fara badan. Markuu soo degay kadib ayaa qaybta VIP-da wuxuu kula hadlay warbaahinta asagoo sheegay in xilkan adag uu isku soo taagay uu doonayo inuu ku samata bixiyo dhibaatada haraadisay Soomaaliya. waad ku mahadsantihiin gedigeena maanta sida sharafta la igu soo dhaweyseen dhulkeena hooyo anigana waan ku faraxsanahay maanta oo caafimaad qaba inaan soo gaaray shaqada qabateen iyo maanta orodka qabateen iyo amahan oo dhan aad baan ugu mahadnaqay adu ilaahay yiraahdana ana gedigan waxaan isku nimid maanta waxa weeyaan hal qodob oo la yiraahdo Soomaaliya sideen maanta ugu shaqeynaa wadankeena badanaa waxaan yiraahdaa dhalinyarada dhan ku yiraahdaa dadka dhan ku yiraahdaa war isweydii adiga wax wadankaaga u qaban kartid ma hay isweydiin wax wadankaaga ku qaban karo marka gedigiina dhalinyarada halkan joogta maanta waa mustaqbalkii wadanka run ahaantii marxaladan oo aad iyo aad u dhib badan aan soo marnay 30 sano soo dhaaftay aniga saan ugu jeedo maanta bilacdii iyo quraxdii iyo wanaagii ininkii weeyaan wadankasna wuxuu ku hormaraa aqoon-yahankiisa maanta ininkii weeyaan anakii maanta waan joognaa waxaan taaganahay maanta qaas ahaan aniga waxaan taaganahay heerkii maanta taan aqoonta ugu wareejin lahaa ininka sababtaan ugu soo safray sababtaan ugu imid sababtaan ugu istaagay xilkan dhibka badan waxay tahay kaliya inaan iraahno future-keena waa inuu isbedelaa waad ku mahadsantihiin waan wada kulmi doonaa waan si wada arki doonaa shaqo badan aan sugayso Abdiraxmaan Kambaalo Goobjoog Muqdisho.